Soomaaliya waa dal aan siyaasad ahaan degganayn ku jira dagaal argagixiso kabashadiisana ay socoto 4 sanaba marna doorashooyinka iyo xukunka ayaa loo tartamaa taasoo la aaminsan yahay inay qayb ka yihiin horumar la'aanta mararka qaarkood yimaada madaxweyne xasan sheekh oo dhawaan ka hadlayay arrintan ayaa sheegay in madaxweynaha rasmiga ee madaxtinimada Soomaalidu uu yahay 2 sano oo shaqo iyo 2 sano oo la doorasho la aado waxa uu ku sifeeyay waqti kooban oo ay tahay in wax badan laga barto waxa kale oo madaxweynuhu sheegay inuu san dib ugu laaban teendhada afisyooni ee Muqdisho taasoo 2 goor loogu doortay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya kaadhku waa caalami bankiguna waa amal xasan sheekh waa madaxweyne mar labaad xukunka yimid hadda waxa uu ka shaqeynayaa dhammaan ficilo siyaasadeed oo saameyn ku yeelanaya arrimaha doorashooyinka gaar ahaan dib u eegista dastuurka bedelida hankalka dawladnimada iyo in laga guuro nidaamka ay Soomaalidu hadda isku waafaqsan tahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare awood ahaan siman marka la eegana ay soo baxayso awoodo isku dheelitiran oo muujinaya sida aysan beelaha Soomaalidu wali ugu heshiinin awoodda dalka tan iyo markii ay dagaalada sokeeye aadeen 1991 xilliga ay dhacday dawladda militariga 1969 Soomaaliya waxa ka dhacay afgambi military oo horseedeen meesha laga saaray dawladdii rayidka ahayd inkastoo lagu kala aragti duwan yahay qeexida awoodihii xilligaasi ka dambeeyay ee yeelatay dawladda militariga ay hogaamiyeen haddana mid la hubo waa in wax qabad badan oo maanta lagu dhagan yahay xukunkaasi ka yimid dood kale oo hadidinaysana waa mid oranaysa in kala tagu ka dhashay xukunka oo la boobay sanadkii 1969 dubeegista dastuurka waa aag siyaasadeed ee hadda ku kala aragti duwan yihiin dhammaan dhinacyada siyaasadda waxaana madaxdii hore ee dawladda federaalka Puntland iyo siyaasiyiinta dibadjoogga ay u arkaan goobtan meel halis oo u baahan in heshiis siyaasadeed oo bannaanka la helo kadibna luuqad sharciya loo rogo taasoo ay ku sifeeyeen haddii aan la helin ay ka dhalan karto ficilo midnimada dhaawacaya mucaaradka hadda ma ku guuleysan karaan hakinta damaca fiila Soomaaliya ma ogtahay in adeega Faras Taxi uu noqday adeega taxi ugu wanaagsan Kenya Faras Taxi waxa ay macaamiisheeda siisaa qiimo dhimis aad u sareysa ilaa 30% kala soo deg App Store-ka ama Play Store inkastoo lagu kala aragti duwan yahay jawaabta haddana mid la hubo waa in Soomaaliya ay ka shaqeyn karaan wax la isku raacsan yahay oo kaliya marka dib loo raaco dhacdooyinka aan fogeyn waxa ka mid ahaa muddo kororsigii farmaajo ee 2021 iyo xukunkiisi ay samaysteen doorashooyinkii qof iyo cod ka ahaa 13 senator oo aan heshiis lagu ahayn loona meelmariyo gobolka Banaadir dhammaan ficiladaasi ma helin heshiis siyaasadeed taasoo u waariday inay noqdaan saqiir aan laga qaadin miiskii lagu ansixiyay dadka qodobadaas xiganaya ayaa sheegay inaysan marnaba suuragal ahayn in Soomaaliya ay ka hirgalaan waxaysan siyaasiyiintu bannaanka uga heshiinin dhammaan shuruucda kuwooda siyaasadda taabanayana ay tahay in loo helo wadar ogol iyo hanaan waadaxa oo dhammaan dhinacyadu ay ku wada qanacsan yihiin mucaaradka hadda ku abuuran madaxweyne xasan sheekh xukunkiisana ka soo horjeeda waxay ku doodayaan isla qodobadii uu daliishanayay madaxweynuhu ka hor 2022 May waxay sheegayaan inay tahay in wada hadal siyaasadeed la helo taasna ay jir rasmi ah u noqon karto in laga baxo dastuurku meel gaar ah laakiin sida looga baxayo ku meel gaarnimada waa adag tahay ay qabaan dad badan oo arrimahan eegaya sababta ugu badan waxay ka dhigeen in qoraal kasta oo xilligan la soo saaro ama loo codeeyo oo dastuur u baahan doona afti dadweyne taas aysan suuragal ahayn waqtigan maadaama midnimaduba dhaawacan tahay dalkuna uu ku jira dagaal argagixiso inta aftida la helayana isla dastuurkan uu ahaan doono mid ku meel gaar ah si kasta oo loo ansixiyo fiila Soomaaliya ma ku adkaan doontaa doodaheeda madaxweyne xasan sheekh iyo xirtiisa siyaasadeed waxay ku adkaysanayaan damacooda ku wajahan wax ka bedelka dastuurka nooca doorashada haykalka dawladnimada oo aan haysan taageerada siyaasiyiinta iyo dawlad goboleedyada qaarkood waxayna sheegeen in socodsiin doonaan cidna loo joojin doonin laakiin sida ay meel mar u noqon karto laftirkooda marka ay u akhriyaan sooyaalkooda dhow uma hayaan jawaabo lagu qanci karo madaxweynuhu waxa uu sheegay in ka badan 3 jeer inuu ku laaban doonin sanduuqii codeynta iyo teendhada afisyooni waxa uu sheegay inaysan marnaba suuragal noqon doonin doorasho dadban waa aaga ugu ballaaran ee dhinacyadu ay isku diidan yihiin in Soomaaliya loo hayaamiyo doorasho dadweynuhu codka leeyihiin waa waxa ugu badan ee dad badan oo Soomaaliyeed ay u guuxayaan laakiin iyadoo aan la isku raacsanayn nooceeda dalkuna si buuxda ugu diyaarsanayn sida ay noqonaysa lama garanayo cidna looma baahna loo joojin maayo iyo Soomaaliya ha noolaato oo ay hore kooxda madaxweynuhu si baan u diidanayeen ay mar kale hadda jidkaas isla ayagu hayaan
taasoo la rumaysan yahay inay muujinayso sida aysan madaxda Soomaalidu u haysan xasuusta tagtadii hore iyo qorshe timaadada la falgala ama aragti dhaafsiisan damaca kursiga. mucaaradka hadda muuqda ma joojin karaan Xasan Sheekha la madaxweyne hore ra'iisul hore iyo siyaasiyiin ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo Puntland ayaa hadda dhinacyada ah sida cad u sheegay inay ka soo horjeedaan jawooyinka loo socdo ee madaxtooyadu u aragto in heegsi siyaasadeed ay ku gaari karto. waxay tilmaameen in dhammaan jidadkaas ay abuuri karaan halis xoog badan oo u dhigantay dawlad dhiska inaan heshiis lagu ahayn kasoo abuuri kartana midnimada oo sii dhaawacanta. xubnaha Puntland Siciidan oo la aaminsan yahay inuu yahay cidda kaliya ee haysata sharciyada rasmiga ee dood soo celin karta wali waxa uu ku jiraa marxalad gudaha oo dib isugu qaabaynayo iyadoo la eegi doono habdhaqaaqiisa siyaasadeed toddobaadyada soo wajahan. inkastoo ay sheegaan xogo hordhac inaysan Puntland hadda u socon dagaal weyn oo la mid ah kii ay soo galisay 10kii sano ee la soo dhaafay ayna beddelkeeda awood siinayso dhinacyada ku loolamaya gudaha Muqdisho oo ay doonayso inay noqdaan kuwa rasmiga ah ee ugu dambeyn soo kala baxa. tan ugu badambaysa ee la isla xaqiijinayo waa in Xasan Sheekh hadda uu caaboon yahay oo hore u socon doono laakiin ugu dambeynta waqtiga oo dhamaad ku sii dhow ay daruufuhu rusheegi doonaan. haddii aad ku nooshahay Amerika, Yurub, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zad, Sahal iyo M-Pesa. ballanteenu waa PC.